halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee bbcsomali.com. waa khamiis 21 bisha Juun sanadka 2018 saacadda Afrikada barina waa 5tii galabnimo. qodobada aan barnaamijka ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah dalal ku yaala qaaradda Yurub oo doonaya in tallaabooyin adag laga qaado soo galootiga waxa ay ku shariyaan dalka Hungary. hogaamiyaal ka socda bariga Afrikana waxay ku kulmayaan dalka Itoobiya si ay hore ugu dhaqaajiyaan heshiiska nabadda ee South Sudan. qaxootiga ka cararaya dalal ay ka mid tahay Soomaaliya oo xerada qaxootiga ka kuma ku xaniban. dhibaatadan waa gudbina laakiin sidoo Trump meesha u qabsaday ilaa hadda wax natiijo ay kuma hayno. culayska jiran waxaan u maleynaa kulay inuu yahay Trump. xubnaha baarlamaanka dalka Tansaaniya ayaa laga baarayaa cudurka AIDS-ka tallaabo la doonayo in lagu dhiirigeliyo in dadweynaha caadiga ah ay isbaaraan. midowga Yurub waxa ay gaareen go'aan ah in canshuuro balaayiin dollar lagu soo rogo badeecadaha Mareykanka uu soo dhoofiyo dalalkaasi. sokor la'aan baahsanina waxa ay ka jirtaa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. sokorta dib weyn ayaan ku qabnaa waayo dukaamada holseelihii ayaan 150 calaa kiilo uga helnaa. marka anaga danta waxay noo qasabtay inaan faa'iido ka raadino ama 180 ama 200 wax noocaas aan raadino. wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka uu soo saaray Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq anigoo aadan Saalamiinana idiin soo jeedinayo dunida iyo maanta. marka hore ku soo dhawaada wararka BBC-da iyo Cabdiraxmaan Xaaji Caddow stuudiyaha magaalada Nairobi. mahadsanid Saalimiin. golaha arrimaha qaxootiga Yurub ayaa wadamada ka tirsan midowga Yurub uga baaqay in ay ka tanaasulin xeerarka xuquuqda aadanaha u yaallo iyagoo eegaya kala qaybsanaanta wadamada Yurub soo dhex gashay ee ku saabsan qaxootiga sharci darrada ah. gudoomiyaha golaha Dimitris Avramopoulos oo ka hadlayay shir jaraa'id oo lagu qabtay Brussels ayaa wuxuu yidhi siyaasadda ku aadan arrimaha qaxootiga ee wadamada Yurub waa inay ahaadaan kuwa dhisaya sharafta ay leeyihiin wadamada Yurub, midnimada, mas'uuliyadda iyo ixtiraamidda xuquuqda aadanaha. waa inaan diyaarinaa nidaam cusub oo aan wax kaga qaban karno dhibaatooyinka qaxootiga, balse ma aha inaan dib ugu noqonno shuruucda noo yaalla. hadda lama joogo xilligii aan is-eedayn lahayn. midnimada waa inaan wax walba ka horraysiinaa inagoo mustaqbalka Yurub ilaalinayno. marka hogaamiyaasha Yurub waxaa la gudboon inay mowqif heshiis lagu yahay oo muujinaya dareenka wadamada Yurub oo dhan ay gaaraan. madaxweyne Trump ayaa saxiixay amar uu ku bixinayo in qoysaska dib looga mideeyo xadka Mexico. siyaasadda Trump oo ku salaysan in loo dulqaadanaynin wixii hadda ka dambeeyay qaxooti sharci darra ku soo gala dalkaasi. carruurta iyo waalidiintooda la kala reebo waxa uu kala kulmay cambaarayn kulul madaxweyne Trump oo ay qayb ka yihiin taageerayaashiisa xisbiga jamhuuriga laftooda. Chris Poliski oo ah urur ay leeyihiin dadka Kirishtanka ee Michigan wuxuu sheegay inay carruurta qaxootiga ah ay qaataan qoysas korsada waalidiinta oo raalli ka ah, balse uu sheegay inuu si weyn uga soo horjeedo in la kala reebo carruurta iyo waalidiintooda. waxaan si adag u taageersanahay inay qoysasku had iyo jeer midoobaan oo aan la kala reebin. xadka in lagu kala reebo aad baan uga soo horjeednaa. waana inay qoysaska sidooda u wada socdaan. sida ugu wanaagsan ay ku wada socon karaanna waa in magangelyo siyaasadeed la siiyo oo si wada jir ah loo qaabilo. waxaana leenahay carruurta waalidkooda intaad ka reebtaan ha geynina xarumaha gaarka ah oo lagu hayo. fadlan waa in la geeyaa guryo lagu korsan karo waalidka oo raalli ka ah. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu meesha ka saaraynin haddii isbahaysiga uu ku guuleysan waayo aqlabiyadda doorashada axadda dhacayso in dowlad wada jira la dhiso. Mr. Erdogan xisbigiisa EK oo xulafo la samaystay xisbiga kale MHP ayaa la filayaa inay ku guuleystaan kuraasta aqlabiyadda baarlamaanka iyadoo la saadaaliyey ugu yaraan inay 300 oo kursi ay heli karaan. codadka la saadaaliyey ee soo baxayana waxay sheegayaan dhinaca kale Mr. Erdogan in ay dhici karto inuu ku guuldarraysto kursiga madaxweynenimada. waa markii ugu horreysay oo madaxweyne Erdogan uu shaaciyey inay dhici karto inuu isbahaysigiisa ku guuleysan waayo codka aqlabiyadda, balse ma sheegin haddii isbahaysigu guuldarraado ama guuldarro halka uu kala kulmo doorashada kale xisbiga uu isbahaysigu kala yeelan doono.
dowladda talyaaniga ayaa markab laga leeyahay jarmalka ku eedeysay inuu ku xadgudbay sharciga caalamiga xilli uu ka howlanaa badbaadinta dadka qaxootiga. wasiirka gaadiidka talyaaniga danilo toninelli oo eedaasi dusha ka saaray markabka jarmalka laga leeyahay ayaa sheegay inuu badda liibiya uu si sharci darro ah uu ku soo galay uuna diiday inuu la shaqeeyo ilaalada badda liibiya. wuxuuna markabku qaaday ayuu yidhi in ka badan 200 oo qof oo qaxooti ah iyadoo ay ammaankooda u sugnayn. wasiirka arrimaha gudaha Matteo Salvini oo ay siyaasadiisu tahay midigta fog ayaa sheegay markabka sita calanka Holland in uu dadka qaxootiga uu sidoo uu ku dejiyo Holland haddii kale uu tallaabo ka qaadayaan. markabkani oo la yidhaahdo howlgalka gargaarka bani'aadanimada wuxuu sheegay inuu badda ka soo badbaadiyey 226 muhaajiriina oo saarnaa doon bac ka samaysan oo naftooda khatar gelin lahayd. badda liibiyana uu soo maray shuruuc caalamina uusan ku xadgudbin. xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in gaashaanbuurtu ay sii jiri doonto iyadoo haatan ay xiisad ka dhex taagan tahay maraykanka iyo yurub. Jens Stoltenberg ayaa sheegay in aan la saadaalin karin mustaqbalka sida uu noqonayo, balse taariikhda ayaa waxayna tusinaysaa ayuu isbahaysigu in xilli walba uu dib u soo noolaan karo. maamulka Trump ayaa wadamada Yurub ku eedeeyay inay miisaaniyad ku filan ay ku bixinin dhinaca difaaca. Mr. Stoltenberg wuxuu intaa uu ku daray hogaamiyaasha wadamada gaashaanbuurta NATO inay arrintani si qoto dheer kaga hadlayaan shirka ay bisha soo socota yeelan doonaan. xaaska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan musuqmaasuq lacago oo qasnada dowladda si khaldan ay uga isticmaashay. wasiirka cadaaladda Israa'iil ayaa wuxuu sheegay musuqmaasuq ay ku kacday haweeneydan u dhaxda Netanyahu ay gaarayso $100,000 oo qasnada dowladda kala baxday iyadoo kula baxday in ay raashin uga soo adeegtay guriga ra'iisul wasaaraha. baaritaanka booliska ay fadeexadani haweeneyda ay ku sameynayeen ayaa waxay qaadatay muddo ka badan 1 sano. dhacdadani ayaa waxay ku soo beegantay xilli Netanyahu laftiisa uu sugayo in uu wajihi doono dacwad la xidhiidha laaluush uu qaatay oo ay booliskana sheegeen in ay laga maarmaan tahay in dacwaddaasi lagu soo ogo. ugu dambeyn, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa sheegay ugu yaraan 19 askari in lagu dilay gobollada adhaadee Faryab, Nimroz iyo Gani. weerarada ciidamadaasi ay ku dhinteen ayaa looga shaki qabaa in ururka Taliban uu ka dambeeyey. dhacdadani cusub ayaa ku soo beegantay xilli ay maalin ka soo wareegtay markii 30 ka mid ah ciidamada ammaanka Afghanistan lagu dilay gobolka Badghis. ururka Taliban ayaa soo gabagabeeyay xabad joojin oo maalmo kooban uu ku dhawaaqay oo ku ekayd Axaddii la soo dhaafay. warar kale ayaa waxay sheegayaan ururka Taliban garabkiisa Pakistan inay qirteen in la dilay hogaamiyahooda Mullah Fazlullah horaantii bishan ay dileen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka laga leeyahay duqeyn ay gobolka ka geysteen. warkii dunida waa naga inta waxaan dib ugu celinayaa stuudiyaheena London iyo Saalimiin. mahadsanid Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. halkani waa London. sidii warkaba aad ku maqlayseen, dalalka midowda Yurub waxaa loogu baaqay inaanay iloobin mabaadi'dooda xuquuqul insaanka marka ay la xaalayaan sida ay ugu kala qaybsan yihiin qaabka wax looga qabanayo dadka sida sharci darrada ku soo galaya Yurub. dalal ku yaala bartamaha Yurub oo doonaya in tallaabooyin adag laga qaado socdaalka ayaa waxay ku shirayaan dalka Hungary maanta. shirkoodu waxa uu ka horeeyaa shir madaxeedka dalalka midowda Yurub ee dhammaadka bishan ka dhici doona magaalada Brussels. cabdinuur sheekh maxamed isxaaq ayaa ka warramaya qodobkaasi. arrimaha socdaalka iyo dadka magangeliya doonka ahi waxay noqotay qadiyad iminka dood xoog leh dhex dhigtay waddamada reer galbeedka oo ay ku kala qaybsami karaan Yurub ha noqoto ama Maraykanka ah. midowda Yurub waxaa diiraddu ay u saaran tahay sida loola xaalayo mowqif midana looga qaadanayo maalan dib u dejinta qoondada waddan walba ku soo hagaagaysa iyo dhaqdhaqaaqa dadka muhaajiriinta ah ee waddamada Yurub dhexdooda. axadda magaalada Brussels waxaa ku shiraya hogaamiyaasha 10 waddan oo midowda Yurub waxay doonayaan in la isku raaco tala midaysan oo ku saabsan dadka magangeliya doonka ah ee iska dhiiba waddamada xubnaha ka ah midowda Yurub. waa qodobka xiisaddu ay ka taagan tahay. ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel oo dowladdeeda wadeega xataa khatari ka haysato arrinta magangeliya doonka iyo qaxootiga ayaa difaacday soo dhoweynta qaxootiga oo waxa ay sheegtay inay tahay mushkilad caalami ah oo u baahan jawaab caalami ah. ha yeeshee wasiirkeeda arrimaha gudaha ee dowladda wadaagahi waxa uu sheegay inuu doonayo Jarmalku inuu celiyo dadkii horey isaga soo diiwaangeliyey waddamo kale oo midowda Yurub ka mid ah, taasoo ay diiday Angela Merkel oo tiri dhibaatadu waxay u taallaa Yurub oo xal ka gaarta. Deutschland steht sowohl zu seiner humanitären Verantwortung. waannu dhinac taagannahay mas-uuliyaddayada aannu ku difaacayno dadka ka soo qaxa dagaal iyo dhib. waxa aannu kale oo aan u taagannahay mas-uuliyadda midnimada Yurub. labadaasi way wada socdaan dhinac kasta oo aad ka eegtid.
soo galeetigu hawl ayuu ku hayaa yurub laakiin malaha iminka arrinka ugu muhiimsani waa sidii yurub la isugu hayn lahaa. waddamada doonaya in dadka iska dhiida lagu celiyo waddankii yurubka ah ee markii ugu horraysay ay ka soo galeen ayaa iyaguna ku shirsan dalka hungari iyadoo dowladda hungari lafahanteedu shalay arbacadii ay meel marisay xeer cusub oo xataa dembi ka dhigaya ururada samafalku inay gacan siiyaan oo ay caawiyaan dadka soo galootiga ah. stevenia kabruzi oo ka tirsan midowda ururada u dooda xuquuqda insaanka ee waddanka hungari waxa ay sheegtay xeerkani in uu dembiilayaal ka dhigayo dadka u dooda xuquuqul insaanka. waxaan u soo xiganayaa sidii uu warku ahaa xeerku wuxuu soo jeedinayaa kaalmo kasta oo muhaajiriinta sharci darrada ah la siiyo in ay dembi tahay. si weyn ayaana loo caddeeyey muhaajiriinta sharci darrada ah. sidaa daraaddeed dowladda hungari waxay adeegsanaysaa tallaabo adag oo ah in fal dembi ah lagu qaado kuwa gacanta siiya soo galootiga. iyadoo tirooyinka soo baxaya ay muujinayaan in hoos ay u dhacayso tirada dadka ka soo gelaya badda mediteraneanka qaaradda yurub tan iyo 2015 ayaa haddana waddamada yurub ay ka dhex taagan tahay isiiba cidda martigelinaysa qaxootiga cusub ma dalka ay ku soo horreeyaan mise waddan walba oo midowda yurub ku yaal. qodobo ka mid a qoraalka qabyada ah ee lagu wada midowda yurub inay ka soo saari doonaan axadda shirkooda waxaa ku dhigan in waddamadu ay ballan qaadaan dadejinta in magangeliyadoonka lagu celiyo dalka markii ugu horraysay ay ka soo galeen yurub. waxaa kale oo ku qalan in la xoojiyo iskaashiga waddamada waqooyiga afrika iyo dib u celinta waddamadii ay u dhasheen ee markii hore dadka socotadahi ay ka yimaadeen iyaga iyo weliba kuwa sharci darrada ah iyo kuwa magangeliyadoonka ah iyo in la taageero ciidanka ilaalinta xeebaha ee waddanka libiya si loo joojiyo dadka tahriibka ah ee libiya ka soo safra ee isku soo biimeeya badda mediteraneanka. war hadda soo dhacayna waxa uu sheegayaa in ra'iisul wasaaraha hungari victor orban uu sheegay in 4 dal ee bartamaha yurub oo dalkiisa ku shiray aysan ka qaybgeli doonin shiryare socdaalka ku saabsan oo guddiga reer yurub uu yeelanayo oo lagu gogol xaarayo shirweynaha hogaamiyaasha midowda yurub ee Brussels ka dhici doona aakhirka bishan. dhinaca kalena dowladda Britain waxa ay sheegtay in habka lagu ogolaanayo muwaadiniinta midowda yurub ee degan dalkan kadib markii UK ay ka baxdo ururkaasi uu noqon doono hab sahlan oo macquul ah oo aanay dadku dhib ka mudan doonin. xogayaha arrimaha dibadda Sajid Javid ayaa waxa uu sheegay in nidaamkani uu ogolaanayo muwaadiniinta midowda yurub inay joogaan UK kadib markii ay Britain ay ka baxdo midowgaasi oo uu noqon doono mid fudud si macquul ahna markaasi loo filan karo. waxa uu sheegay guddiga baarlamaanka aqalka sare ayuu wuxuu u sheegay in ujeeddadu ay tahay in markaasi la gaaro oo la abbaaro sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagalna ah in dadka ku nool halkan ay 5 sano iyo wax ka badan oo deganaa inay heli karaan deganaasho. Rob Watson ayaa warbixintan diyaariyey waxaa soo jeedinaya Cabdirasaaq Xaaji Catoosh. amuurtan ayaa waxay ahayd midii ugu adkeyd ee soo wajahda ka bixitaanka Britain ee midowda yurub ka baxayso taasoo ah waxa ay ku dambayn karaan in ka badan 3 milyan iyo bar haysta dhalashooyinka midowda yurub oo hadda ku nool dalweynaha UK. wasiirka u qaabilsan amuurahan dalka Britain Sajid Javid ayaa hadda waxa uu ballan qaadayaa inay sahlan tahay oo qaabkan online-ka ay dadka wax codsanaya ku soo gudbisan karaan xuquuqda ay u leeyihiin inay dalka UK sii joogaan. Mr. Javid ayaa waxa uu sheegay inaanan dib loogu noqon doonin fadeexadii Windrush ee horay u dhacday iyadoo dadkii horay arjiyada u soo gudbistay ee ku guuldaraystay qaabka laanta socdaalka iyadoo dawladdana la rajaynayo inay soo gudbiso qaabkan cusub oo la daafuri doono dhammaadka sanadkan. waa hagaag Cabdirasaaq Xaaji Catoosh aad buu u mahadsan yahay. isla qodobkaasi Aways Sheekh Cabdiraxmaan oo jooga ayaa dadka waxa uu ka mid yahay dhageystayaasha isagu ra'yigiisa soo dhiibtay dhinaca Facebooka. Aways waxa uu joogaa magaalada Muqdisho waxaana uu leeyahay run ahaantii arrinta muhaajiriintu waxa ay dalalka reer Yurub iyo Mareykankaba ay ku noqotay laf dhuun gashay. laakiin xaaladda haddu waa ay ka duwan tahay markii uu hore buu yiri iyagoo oo ku faani jiray ilaalinta qaxootiga ayay maanta waxa ay bilaabeen is-eedayn iyo in midba midka kale qalad dusha uu ka saaro. Faarax Bashiir waxa uu ka soo qoray magaalada Gaalkacyo waxa uu leeyahay kala qaybsanaanta reer Yurub ay ku kala qaybsan yihiin arrimaha muhaajiriinta runtii waa mid waayadan dambe soo shaac baxday balse reer Yurub iyaga ayaa isku furay wadadan oo markaasi noqotay buu yiri wado ay dad badan oo qaxootiya ay ku soo dhawaadaan cid kasta oo soo galooti ah haddii kalena go'aan midaysan ayay ka qaadan karaan.
ilhaan cumar waxa ay joogtaa magaalada gaalkacyo waxa ay leedahay dalalka reer yurub ee loogu baaqay inay ilaaliyaan xuquuqda soogalootiga waa kuwo ku kala duwan waxaynan u aragnaa bay tiri in dalal badan oo yurub ku yaala inay si xun ay ula dhaqmaan muhaajiriinta waxaanan arkayaa bay tiri oo kale dalalka maraykanka oo waalidkii soo gala ay ubadkoodii kala hareen haddana waxaa mudan bay tiri in waddamada yurub ay dhowraan xuquuqda muhaajiriinta ka soo qaxaysa dagaalada iyo dhibaatooyinka waa hagaag halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa london weli wararka ku saabsan dhinaca soogalootiga iyo socdaalka ayaynu ku guda jirnaaye dhinaca kale dagaalka siyaasadeed dalka maraykanka ee ku saabsan carruurta soogalootiga ah ee iyaga iyo waalidkood la kala geynayo ayaa waxa ay u wareegtay koongareeska kadib markii donald trump uu saxiixay wareegto uu ku joojinayo siyaasaddaasi wakiilada aqalka sare ee maraykanka ayaa u codayn doona sharci cusub oo ballaaran oo ku saabsan in la maalgeliyo soo jeedinta madaxweyne trump ee derbi in laga dhiso xuduudda dalka mexico laguna dhimayo soogalootiga sharciga ah warbixintan waxaa soo jeedinaya maxamed maxamuud cadde waddanka maraykanka waxaa ka bilowday arrin aad iyo aad dad fara badan ooga caraysiisay markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu saxiixay wareegto uu qoysaska soogalootiga ah ee ka imaanaya dalka mexico uu kala harayo carruurtooda ilaa iyo 2,200 oo waalid ayaa caruur ku dhow 2,300 laga reebtay carruurtaasi ayaa si gaara loo haya waxaa hadda ka socda aqalka cad ee maraykanka dood la rabo in lagu ansixiyo ama loo codeeyo qaraar cusub oo la meel marinayo oo islamarkaana u meeldayaya ra'yigii uu master trump ku gaaray doorashooyinka oo ahaa in gidaar la dhiso islamarkaana aada hoos loogu dhigayo dadka soogalootiga ee qaanuunka sida khilaafsan ku imaanaya ama kuwa sida qaanuuniga ku imaanaya waxaa arrintaasi aad iyo aad oga mudaaharaaday oo ka soo horjeestay dadka ka soo jeeda hisbaaniga loo yaqaano ee ka soo jeeda wadamada latin america waxaana hadda muuqata in aqalka cade dhexdiisa laga raadinayo in ay tanaasulaad isu sameeyaan labada dhinac qaar ka mida dimuqraadiyiinta ayaanan doonaynba inay taageeraan ra'yiga u wato madaxweyne trump islamarkaana qaar ka mida xisbigiisa ayaa iyana si cad oga soo horjeeda waxaana cad in ay bartilmaameedka ka dhiganayaan oo keliya caruurtan laga reebanayo waalidkooda maasanid maxamed maxamuud cadde halkaad weli nagala socotaanna waa b b c london hogaamiyayaal ka socda bariga afrika ayaa maantay waxa ay ku shirayaan dalka etoobiya si ay horey ugu dhaqaajiyaan heshiiska nabadda ee lagu dhammaynayo colaadda 4 sano ka badan ee ka soconaysay dalka south sudan kulankan ayaa imaanaya maalin kadib markii madaxweynaha south sudan salfakiir iyo ninka ay iska soo horjeedaan reeg machar ay ku kulmeen dalkaasi etoobiya markii ugu horreysay muddo 2 sano ah inkasta oo kulanka labada dhinac ee dagaalsan uu weli ka fog yahay inay gaaraan heshiis awood qaybsi ah ayaa haddana waxaa lagu dadaalayaa sidii xaaladda waddankaasi loo dejin lahaa wariyaha b b c da cabdinuur sheekh axmed isxaaq ayaa istuudiya la fadhiya oo sheekadaasi inoo haya saalimin labada hogaamiye ee south sudan madaxweynaha dalka silva kiir iyo ku-xigeenkiisii hore riyaag mashaar oo loo haysto in ay dagaalka waddankaasi ay iyagu curiyeen dagaalka sokeeye oo dadka faraha badanina ay ku qaxeen kuna dhinteen ayaa foolkafool shalay ugu kulmay arbacadii magaalada addis ababa waxaa isu keenay ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed waxa uu ahaa kulankii ugu horreeyey oo labada hogaamiye ay yeeshaan muddo ku dhowdhow 2 sano sida laga daawaday ee cajal video qayb yaroo ka mid ah oo laga arkayey labada hogaamiye oo uu dhexda kaga jiro ra-iisul wasaare axmed markii dambena la arkayey iyagoo iskacan qaadaya haddana laabta isku salaamaya markii ugu horreysay ee ay kulmeen labada nin waxay ahayd markii uu qarxay dagaalka ba'an caasimadda jubba ee bishii julaay 2016 iminka qodobada heshiiska labada dhinac la doonayo in ay ogolaadaan waxaa ka shiraya wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada igaad marka ay diyaariyaan qorshaha nabaddana waxaa xigaya shirka sare ee madaxweynayaasha igaad oo in badan oo ka mid ah haatan addis ababa ay joogaan oo la filayo cadaadiska ay saarayaan labada hogaamiye ee south sudan inuu noqdo mid shaqeeya ha yeeshee khubarada arrimaha gobolka ka baaran degta siiba colaadaha south sudan ayaa waxa ay ka digayaan fashilaadaha shirarkii hore iyo heshiisyadii hore ee nabadda ku yimid
kuwaasoo ka shaki qaba in guusha laga gaari karo ay yahay in ay nabad dhaliyaan kiir iyo mashaar mid aad u yar. waxaa kale oo aan kala caddayn xataa labada nin in ay joojin karayaanba dagaalka qoloqolada loogu kala baxay ee waddanka suudaan ka socda. waxaana shirkan south suudaan ee adisababa uu ku soo beegmayaa qayladhaan xoog leh oo caalamka iyo gobolkaba ka soo yeeraysay oo ku saabsan sida ay ugu madax wareereen waanwaantii laysugu noqnoqonayay hadba ee nabadda south suudaan oo xataa keentay golaha maanka ee qaramada midoobay inuu uga digay labada dhinac haddii ay heshiin waayaan markan in ay xayiraado iyo cunaqabatayn ku soo rogi doonaan. mahadsanid cabdinuur. isla wararka dalkaasi south suudaan ayaanu ku guda jirnaya marxalad u noqon karta taariikhi dalkaasi dunida ugu da'da yar oo haatan madaxweynaha south suudaan salfakiir iyo hogaamiyaha mucaaradka reeg majaar ay kulan foolka fool uu ku dhex maray dalka etoobiya markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2016 ayaa dhinaca kalena qaramada midoobay waxa ay sheegtay in laba meelood oo 3 meel marka loo dhigo dadka reer south suudaan ay u baahan yihiin cunto gargaara. iskuday cusub ayaa lagu doonayaa in nabad lagu aslaaxiyo dalkaasi ayaa haatan soconaya. anasoy ayaa warbixintan waxay ku eegaysaa macluusha aadanuhu sababay ee ka jirta south suudaan. waa kan axmed beder oo soo jeediya. in ay arkaan koloyo gawaari qaramada midoobay ka socota waxa ay carruurtani siinaysaa rajo ah in maanta ay heli doonaan wax ay cunaan. aqlabiyadda dadka halkani ku nool waxa ay ku nool yihiin gargaar bini'aadanimo, balse ujeeddada taasi waa ay ka weyn tahay maanta. waxaan ku sii jeednaa kudha oo 35 kilomitir u jirta magaalada Juba. waddooyinka halkani waa kuba aan la saadaalin karin. waxaana ku sii jeednaa meel noola sheegay in uu ka dhacay weerar ay burcad geysteen, islamarkaana halkani ma aha meel ammaankeeda laisku hadlayn karo. kuwani waa darawallada gawaarida gargaarka sida. waxayna noo sheegeen in waddadani dhac lagu geystay iyada oo hub la adeegsanayo. in gargaar la gaarsiiya dadka u baahan waa arrin halisteeda leh. dalka koonfurta suudaan waxaa lagu dilay tirada ugu badan shaqaalaha gargaar ah caalamka oo dhan, balse dhibaatada ugu weyn waxa ay soo gaartay dadka halkan ku nool. waxa ayna indhaheenna qabanayaan beeraley aad u tira yar oo shaqaynaya. beeraha waan qodannaa, laakiin mararka qaar waa inaan kaymaha ku cararnaa si aan u dhuumanno. dhammaan dadkii dariska nala ahaa waa ay qaxeen, qaarna waa la dilay. ma naqaan waxa aan samayno. waxaan dhex socdaa guryo badan oo cooshado ka samaysan, kuwaasi oo lai sheegay in ay ku nool yihiin dad barakacay. waxaana horteyda ka muuqda dhul aad u qurux badan iyo buuro. waxaa lai sheegay in buurahaasi ay yihiin halka ay isku qarinayaan kooxaha hubaysan, islamarkaana ay xaaladda kala socdaan ayna soo qaadaan weeraro xilli lama filaana. Christian Kaku waxa ay noo sheegtay in walaasheed la dilay, islamarkaana imika koriso carruurtii ay ka tagtay walaasheed. waxaana laga dhacay dhammaan cunnadii iyo xoolo ay dhaqan jirtay. hooyadani haysata 4 cunug waxa ay imika u weecatay dhanka beeraha, gaar ahaan khudaarta, si ay qoyskeeda ugu quudiso. dhulkani waa mid ku fiican tabcashada beeraha. dadkuna waxay ahayd inay beertaan sanadkan oo dhan, balse taasi halkani kama jirto sababtoo ah dagaalada, islamarkaana waxa ay macaluul haysataa beeralayda. waxay rajaynayaan in nabadda mar-uun ay ku soo laabato dalka koonfurta suudaan. ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan koonfurta suudaan, David Schreer, ayaa xiriir la sameeyey labada dhinac ee ay dirirtu ka dhexayso. muse shariir ayaan la hadlay markii aan ka soo laabtay safarka mid ka mida goobaha colaadda ugu ba'an ay ka jirto ee waqooyiga koonfurta suudaan. booqashadu waxa ay ku saabsanayd inaannu soo aragno sida ay tahay xaaladda gudaha ee dalkaasi, si aannu u xaqiijinno in nabad ilaaliyayaasheennu ay u suurowdo inay tagaan deegaanada ay doonayaan inay tagaan, iyo weliba inaannu si kulul oo cad aannu ula hadalno labada dhinac ee u dhexayso colaadda. tani waxay ahayd in xabad joojin ay noqoto oo weliba ay dhaqan gasho xabad joojintaasi. welise dagaalku waa uu socdaa. hase yeeshee waxaa middaasi ka sii daran in dadka dhibaatadan ay saamaysay ay yihiin dadka rayidka ah ee leh haweenka iyo carruurta la isaga cararay marka dagaalyahanada ay dib u gurtaan, dadkaas oo si ula kaca loo beegsado.
dadka ka badbaaday dagaalka ayaa waxa ay la ildaran yihiin gaajo islamarkaana tirada carruurta ay nafaqadarrada haysato ayaa mid sarraysa. bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal. wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah. haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bogga internetka ee laanta af Soomaaliga, mar kasta iyo meel kasta. magaalada Muqdisho, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Bashiir Cabdi ayaa isku bedelay qaar cusubna u magacaabay taliyaasha saldhigyada booliska ee magaalada caasimadda ah, oo ay gabar kabtan ka mid noqotay taliyaasha cusub ee saldhigga Shangani. waa dhamme Raxma Salaad Maxamed oo xilka loo magacaabay uga warantay wariyaha BBC-da Faarax Lamaane. wallahi shaqadayda qaran aan qaban jiray mid ka mid ay tahay magacaabista taliyaha saldhigga Shangani loo magacaabay. shaqo ka adagna hore waa u soo qabtay ayana inaan qabto diyaarana. waxa ay sheegtay shaqo ka adagna inaa hore u soo qabatay, marka maxaa u malaynaysaa inaa adiga ku mutaysatay hawshan? kullay madaxdii ii magacaada waxay ila soo jeclaatay, yani waxaan aaminsanahay shaqo wanaag iyo horumartay in laygu siiyo. waxaa iga warantaa taariikhdaada ee shaqada booliska, xoogaa ma ii soo koobi kartaa? taariikhda shaqada booliska aan soo galay waa 2006 bishii afraad aan ku soo biiray ciidanka booliska. tan iyo markaas ma waxaa ka shaqaynaysay degmada Shangani? maya, taliska ciidanka booliska iyo qaybihiisa gaar magaalada Muqdisho aan ka shaqeynay. waa gartay. waxaa iga warantaa marka magaalada Muqdishona waa taqaanaa iyo amnigeeda, waxyaabaha ay isleedahay caqabad ay kugu noqon karaan ama shaqadaada culays ay ku keeni karaan maxaa kamid ah? wallahi wax caqabad ah hadda aan sheegi karin oo jirto. magaalada Muqdisho maanta nabad waaye, meel kasta la mari karaa, amnigana 100% waaye. ayada intaan ka liiso ka culus aan soo marnoon ku soo shaqeynay, marka inaan hore u socon karaan aaminsanahay. wax iga hor imaan karo caqabada inay jiraan aaminsan. dadka aad ilaa iminka la kulantay iyo dadka kula shaqeeya markii loo sheego inaad tahay taliyihii degmada Shangani booliskeeda, sidee u arkayaan, sidee kuu soo dhaweeyaan? wallahi shalay subax ayaa la ii magacaabay, shalay subax ilaa iyo saacadan aan kula hadlaayo bulshada noocyadeeda kala duwan inay ii hambalyeeyaan maahan wax niyajaba inta wax hor imaaday weli maaha. adiga marka shaqadan ma isleedahay waa ka bixi kartaa amniga magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada hadda lagu magacaabay? adoon sidee isleedahay waa isugu keeni kartaa noloshaada gaarka ah iyo shaqadan booliska ee dhibka badan? waxaadan ilaaweydin inaan hooyo Soomaaliyeed ahay, hore aan u ahaaro qaranka u shaqeynayo, maantana aan ahay aaminsanahay in labadayda shaqada aan maaraysan karo. sidee marka shaqadii qaranka iyo tan hooyanimada isugu keeni kartaa? waa ku sheegay horena waa isugu keenaan ku dhahay, haddana waa isku keeni karaa, waana wadan karaa. waayahay, marka maxaa qorshahaaga yahay waxa hadda ka dambeeya dhinaca amniga ee degmada Shangani? kaalinka iyaga aadana amniga ee degmada Shangani inaan wax ka bedelo, meesha hadda joogtay ka soo qurux badan gaarsiin insha Allah. waa dhamme Raxma Salaad Maxamed oo u waramaysay wariyaha BBC-da Faarax Lamaane. bal markana sheeko ka duwan kuwii hore, daanyeerka weyn ee gurilaha loo yaqaano oo dadka si calaamada gacmaha kula hadli jiray ayaa geeriyooday oo dhintay. maxamed cadde ayaa faahfaahinta haya. waxaa ku yaala gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in ay geeriyootay daanyeerka nooca loo yaqaano gurilaha oo lagu magacaabi jiray Coco iyadoo 46 jira. daanyeerkaasi waxa uu caan ku noqday waxa uu bartay afka ay gacanta kaga hadlaan dadka dhagoolayaasha ee dalka Mareykanka. Coco ayaa waxay ka mid ahayd dhowr daanyeer oo fara ku tirisa oo yaqaanay sida loo isticmaalo luqadda ay dadka dhagoolayaasha ku hadlaan ee loo yaqaano sign language-ka. waxaa ka mid ah Washo oo ah daanyeerka nooca loo yaqaano chimpanzee oo ku sugan gobolka Washington ee dalka Mareykanka. Chantek oo asna ah daanyeer ku sugan Atlanta oo ah nooca loo yaqaano orangutan.
waxaa la sheegay xataa in ay xoogaha ingiriisiga ka fahanto qaar ka mid a saynisyahanada ayaa su'aal ka keenay luqadan loo yaqaano sign languageka ama dadka dhagolayaasha ku wada hadlaan oo dhex maraya bini'aadamka iyo daanyeerka hase ahaatee waxaa la sheegay in kowkow ay safiir u ahayd daanyeerada kale oo inta badan meelaha ay ku nool yihiin lagu ugaarsanayey oo dhabargo halis ugu jiray ama khatar ugu jiray in dhirta ay ku nool yihiin bartamaha afrika la guro hay-addan ayaa sheegtay kowkow inay taabatay nolosha malaayiin qof kadib markii ay hadli jirtay islamarkaana u garaabi jirtay daanyarada kale waxay ahayd mid aad loo jeclaa hase ahaatee dad badani ay tebi doonaan kowkow ayaa waxa ay ka qayb gashay taariikhdeeda in wax badan laga sameeyo waxaana dhowr goor lagu daabacay warsidaha loo yaqaano national geographic magazine 2 goor kowkow waxa ay ka qayb gashay internetka oo iyadoo malaayiin qof ay daawanayaan ayaa waxaa la weydiiyey waxa ay jeceshahay markaasay tiri waxaan jeclahay cabitaanka maxamed cadde aad buu umahadsan yahay haatanna saacadda istuudiyaha ayaa waxa ay soo gaartay 5:15 galabnimo ee afrikada bari waa xilligaad nooga barateen mar kale inaan idin dul marno qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona cabdiraxmaan xaaji caddo wariyaha b b c da istuudiyaha magaalada nairobi ballan ka codsado qaar ka mid ah waddamada yurub ayaa sheegay inay marnaba oggolaanayn inay qaxooti sharci darro ah ay soo galaan waddamadooda iyagoo shir uga socdo dalka hungari madaxweyne trump oo oggolaaday inaan la kala reebin carruurta iyo qoysaskooda balse diiday inay qaxooti sharci darraha dalkaasi soo gelin uuna isu diyaarinayo derbiga u dhexeeya meksiko iyo maraykanka sidii loo dhisi lahaa madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan oo sheegay inuu meesha ka saarayn haddii isbahaysiga uu ku guulaysan waayo aqlabiyadda doorashada axadda dhici doonta in dawlad wada jira la dhisi doono xaaska ra'iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa lagu soo ogay dacwad ku saabsan musuqmaasuq lacag oo ay qasnadda dawladda si khaldan uga isticmaashay lacagtaasi oo dhan $100,000 mas-uuliyiin ka tirsan dawladda afghanistan ayaa sheegay ugu yaraan 19 askari in lagu dilay gobollada faryab dimuraaz iyo gani ururka taalibaanna wuxuu qirtay hogaamiyahooda bakistan mulla faslullah in la dilay wararkii qodobada warka koobnaa waa inta dhagaynta haatan waxaan dib kugu celinayaa istuudiyaheenna london iyo saalimiin aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan xaaji caddow qodobadaasi wararka caalamka ugu doorka roon ee uu noo dulmaray sokor la'aan baahsan ayaa waxa ay ka jirtaa caasimadda nairobi ee dalkaasi kenya waxaana ugu sii daran xaafadda soomaalidu ay ku badan tahay eslii oo si weyn sokorta looga isticmaalo dukaamada halkaasi ku yaalla ayaana sokortii markaasi ay iibinayeen ay ka dhammaatay umuurtan ayaa waxay ka dambaysay kadib markii dawladdu ay bilowday inay baarto sokor la sheegay in ay tayadeedu hoosayso waxaana cirka isku shareeray qiimaha sokorta oo saamayna ay ku yeelatay nolosha reeraha iyo weliba maqaayadaha cumar maxamuud saciid waxa uu ka mid yahay soomaalida ka ganacsata sokorta kawthar maxamed ayuu markaasi islii ugu warramay sonkor sun ku jirto ma jirto hadda xitaa waxaa maqlaysa dawladda qolo ka mid aan dheheen sun baa ku jirta qolo ka midana ay dheheen sun kuma jirto sonkortan way dhici kartaa dadka soo dejiyey oo dibadda ka keenay iyo dadka boodharka jooga oo wax kala gadanaya ama bambaaso jooga derkadda jooga inay u heshiiyeen si ay kaloo lacag ku yareeyaan waraaq stiikar lagu dhejiyey way dhici kartaa wax noocaas inay jiraan laakiin sonkor sun ku jirto ma jirto taas waa sonkorta sunta intaani ogahay sababtoo ah waxaa waaye haddaba sonkorta intay taallaa waxaa la geyn karaa meelaha caadiga wax lagu baara laabtooriga ruuxa yidhi sun baa sonkor ku jirta oo ku dhawaaqay oo miidiyaha ku dhawaaqana aniga shakhsi ahaan dawladda waxaan ka codsan lahaa ruuxaas in su'aalo dheeriya la weyddiiyo oo caddaynteedii la weyddiiyo hadduu sun ku helo ciddii keentay iyo ciddii lagu qabtaba in lagu cinqaabo laakiin haddaysan sunu ku jirin in ruuxa noocaas u hadlay oo cadowtinimada noocaasi ku jidho oo xasidnimada noocaasi ku jidho oo dad beecsharadooda saa u baabi'iyey in tilaabo laga qaado baan dawladda ka codsan lahaa nin ruuxaas bal waxaad noo sheegtaa qaab nooceeba idiin saamaysay dhibaatadan aad bay noo saamaysay beecsharadannada way baaba'day dhowr iyo 10 beri oo yani waxyaalahan la sheegahayey yani maana shaqaysan dadkii way kala carareen waxayna noqotayba xitaa wax kasta oo la gadayaba in la gadi waayo marka yani shaqada dukaamada way baaba'day canshuur baan bixinaa liisin baan bixinaa lacagta annaga aan shaqayno shacabka nairobi jooga haddaan nahay inta badan dawladday ku noqotaa say doonta hagu noqotee laakiin waxaad moodaa in annaga wax dan aan nalaga lahayn iyo wax damanaqaad aan nalaga lahayn midna aysan jirin sonkorta haddii la isweydiinayo meeshay ka timid ama alaabtu meeshay ka timaado annaga waxaan ku qanacsannahay barodhagtiga kenya inaan gadno laakiin dawladda ayada u taallaa hadday rabto inay wax joojiso
meelaha waxa ka soo gelayaan intay tagto ha celiso ha joojiso wixii annaga naloo keeno waddanka oo sharci waa gadayna laakiin hadday dawladdu wixii boorarka soo marayay ama maxaanku idhahdaa ay derkada soo marayay fasaxayso dhexdan ay ku qabanayso hadda wax la joojin kara ma aha waxaas wax loo jeedo in la joojiyana ma aha waxyaalaha hadda aan la yaaban arkay waxaa ka mid ahayd store meeshaan ku yaallaa sonkor lagu qabtay sonkortii waxaa la dhahay sonkorta rasiidkeedii baan haynaa ninkii keenay sonkorta oo soo dejiyey iyo rasiidyadii baa la keena waxay dhaheen adiga sarre waraaqahaagu way saxan yihiine iska tag laakiin ukaadi aan kuwaan dhammaysanne taas waxaad mooddaa dadka shicibka yacni kan weyn iga celiyo kan yar iga daa inay tahay waan gartay xaggee sonkorta ka soo dhoofsataan annaga sonkorta waagii hore waxaa jiri jirtay sonkor muumiyaas la yidhaahdo oo waddanka ku filnayd waddankii way burburtay markii dambe sonkorta Uganda oo sharci ahaa soo geli jidhay si ayadina u jirtay ayadina way iska yaraatay kabacdi waxaa la fasaxay sonkorta dibadda ah oo yacni in la keeno si caadiga u ahayd markii u dambaysay haddana waxaa dhacday sonkortii waa la qabanayaa in la yidhi xitaa waxaan dhihi lahaa hadday jiraan dad u jeeda inay sonkor ayagu keensadaan oo beecsharada si kale raba inay u isticmaalaan hal waa easy waa inay joojiyaan sonkorta meesha ka timaada ha ka joojiyaan waxa gudaha ayaga iska dhamaanay marka waxaan dhihi lahaa yani arrintaas dawladdu ha ka fiirsato dhibaato badan baan ku qabnaa dhanka kalena BBC-da ayaa la hadashay qaar ka mida dadka ay saamaysay sonkor la'aanta Islii magacaydu waa dhaqane cali axmed oo ku magac dheer dhaqane finno sokorta dhib weyn ayaan ku qabnaa waayo waxaan gadnaa dukaamada oo tafaariqda dukaamihii holseelihii ayaan 150 calaa kiilo uga helnaa marka anaga danta waxay noo qasabtay inaan faa'iido ka raadino ama 180 ama 200 wax noocaas aan raadino marka dadka miskiimaha waa nagu dhib qabaan waayo dadkii sokor raqiis ay u barteen dad waxa jira 30 shilin iska qaadanayaan dad 20 shilin iska qaadanayaan dad 10 shilin oo cabiraysa tuman hadda wixii dhan kuma kala go'ayaan wixii waa inaas adiga naftigaas korta qaalad ay kugu noqoto mar hore tafaariq asgadaysa wax yar iska soo qaadanay sidii loorko yar camal loorkii marka danta waxay ku qasbinaas kiilo cabirta bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa way Firdawsa Axmed Cabdi waxaan ka mid ahay ganacsatada Islii bikiri shaad konton u sii socdaaba waxaan ka codsanaynaa sokorta in noola soo raqiisiyo ayaa u baahanahay sokorta zamaani waxay mari jirtay 80 ay mari jirtay mogtahay hadda waxay maraysaa 150 dadku waxay ogaayeen shaah inuu 20 ahaan jiray haddana shaah uu qaaloobay wuxuu marayaa 50 magacaygu waa Cabdulla Cabbaas dawladdu waxaa laga rabay marka horeba yacni maadaama sokoraha qaar ay leedahay dibadda ay ka yimaadeen xiriir kuwa local oo sida mumiyas ama kuwan kale inay qiimo fiican ay ku bixiso waxay mar hore dhibkan ma dhacdeenba hadda waxaad moodaaba in kuwa naftarkooda ama la helayninba laakiin ma wixii iska jooji ayadoo loo fikirin oo wixii dhibka ka imaanaya maxaa kale jira sokorta ku socotay waxa ku sabadka waa laga fiican yahay kooxo iska wareegana waxa jira meel walba joogo dadka iska faa'iideysana oo arrimaan maqleen ka faa'iideysanay oo meel walba oo sokortii oo kana la qabana kana qabanayna bakharkana aadaan dawladuna kama warqabto dawlad ahaan waxaa la rabay dadka inay kalsooni ku yeeshaan oo dadka ay dareemaan inay shacabku ay dawladoodu shaqaynayeen haweenay Soomaaliyeed oo ku noolaan jirtay dalka Canada haatanse dalka dib ugu noqotay ayaa waxay magaalada Garowe ka furtay maqaayad lagu kariyo cuntada wadaniga ah ee ay ka midka yihiin digirta garowga iyo kuwa la midka ah cunida raashinka noocaas ayaa waxa ay sheegtay inay bilowday markii ay ka kacday cudurka kansarka oo ku dhacay oo ay si buuxda uga bogsotay Sucaad Maxamuud Cali ayaa waxay uga warantay wariye Axmed Caawil Jaamaca sidii ay maqaayadaasi ku bilowday iyo faa'iidada ay aaminsan tahay in laga helo cuntada wadaniga ah dumarka shaqaalaha ayaa sheegay in ficilada noocan ah ay bateen dhanka kale qof kale ayaa sheegay inay macquul tahay in daweyn lagu bedesho galmada hay'adda ayaa sheegtay inaysan u dulqaadanayn tacadiyada iyo dhibaatooyinka lagu soo waa hagaag warbixintaasi waan idiin soo gudbin doonaa waxaa halkaad naga dhagaysanaysaan waa London waxaana ay taasi ka hadlaysay markaasi warbixin kale oo dhinaca qaxootiga waa tan warbixintii Garowe aniga xamar ayaan ku dhashay 29 sano ka hor ayaan wadanka ka tagay Canada ayaan tagay Canada ku noolaa adiga 12 sano ugu dambeysay waxaan ka mashquulsanaa cuntooyinka iyo sida loo cuno iyo herbalka iyo sida loo isticmaalo taasoo keentay xanuun aniga igu dhacay hadda ka hor oo kansarka 16 sano ka hor igu dhacay taas ayaa waxay keentay markuu Ilaahay iga badbaadiyay inaan raadiyo xanuunkan wax alla wixii maaragtay lisaga ilaalin karo iyo ama lagu daawo waxyaabaha ku dawooday maxaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa waxyaabaha markaan fiiriyay cuntooyinka ayaa waxa ii soo baxday cuntada la cuno inuu ka yimaado xanuunkan cuntada nooca la cuno ayay ku xiran tahay dabcan cuntooyin xirxiran oo chemical ka buuxa ama oo la soo mariyay warshado taas ayaa waxay keenaan xanuunooyinka waaweyn sida kansarka oo kale marka alxamdulillah markiiba waxaan bilaabay inaan joojiyo
guriga oo dhan aan ku dabaqo cuntooyinka baalka leh cuntooyinka khudaarta waxyaabaha freshka inta laga soo gado suuqa adiga aad karsanayso oo aan warshado soo marin waxaas marka ogaaday marka arrintan cilmi ahaan miyaad u raadisay cilmiga caafimaadka wax ka baratay aniga waxaan ahay lab technician hooyadayna waxay ahayd dhakhtarad waxay ahayd qof gynecologist waxaan kusoo koray guri caafimaad anigana dadka laabka ka shaqeeya laakiin waxaan ka jeclaaday xagga nutritionka yacni nafaqada xaggeeda taas ayaan marka ku takhasusay oo waxaan sameeyey wax self study la yidhaahdo inta badan marka 12 sano ayay iga qaadatay inaan fahmo jirka sida uu shaqeeyo yacni cuntada oo la shaqeeyo cuntada fiican iyo cuntada xun waxyaabaha sida jirka u saameeyo tiya marka waxa ay soo baxday marka inay dadkeen wax ugu baahi badan maanta adduunka dadka jooga oo dadkeen wadankeenu noqday markaan firaaqo helo ilmihii xoogaa ay u weynaadeen waxaan jeclaaday inaan wadanka ku soo laabto oo aan dadka uga faa'iideeyo cilmigaas ilaahay maaragtay siiyey oo aniga aan maaragtay isku dabaqay reerkaygana ku dabaqay cunnooyinka aad samaysaan waa noocee cuntooyinka waa cuntooyinka baalka leh masalan sarreenkii galeydii digirihii misirta heeda waxyaabahaas ayaa waxay keenaan yani in jirka ay siiyaan quwad xoog leh uu la dagaalami karo xanuunada isla markaasna jirka dhisaysa marka taas ayaan dadka kula talinaa sida khudaarta kalluunka fruitska inay wax ka cunaan si marka qofka uu u helo fitamiinada jirka uu u baahan yahay oo dhan yani jirkiisa si uga dagaalami karo xanuunada uu iskaga celin karo mararka qaarkood waxaa dhici kara sucaaday in cunooyinka qaybtooda ay isku dheelatirneen marka idinku maxaad ku cabiraysaan waxaa dhici karta dad xanuunsan iyo inay jiraan oo dhiikar iyo sokor iyo qabo saas markay tahay annaga waxaan u diyaarnay barnaamijyo badan oo kala duwan maadaama aan xagga cuntada si fiican xoog aan u saarno annaga waxyaabo badan aan ka shaqaynaa oo maaragtay dadka aan rabno inay ku daawoobaan qofkii xanuunsan iyo ka hortag shaqada aan ku jirnan waxaa ugu badan ka hortagga waa waxyaabo badan ayay sahlaysaa qofka intuusan xanuun ku imaadin uu iska ilaaliyo marka intuu maaragtay qofka markuu xanuunsado wax u raadin lahaa dadkii lacag u aruurin lahaayeen dibadda loo kaxayn lahaa waxaa ka fudud marka in laga hortago xanuunada marka meeshaan hadda aad fadhay ka waran dadku soo fahmeen dadkii sharaxaad kaliya u baahan yihiin wixii haddii laga dhaadhacsiiyo oo la dareensiiyo iyaga wax ku cusub ayay u egtaa laakiin dadkeennii hore sida waxay cuni jireen ayaan soo ceshanaynaa oo ah cuntada baalka leh iyo waxyaabaha dhulka ka soo baxayna cunno marka la soo xasuusiyo qofku wuu fahmaa dadka intooda badan 90% way fahmeen wayna qaateen yani tacliimaadkii wayna ku dhaqmeen aad bayna dad badan yani noogu mahadiy cunooyinka aad samaysaan ma ku jiraa hadda cunooyinkan laga daba dhaco dadku u badan yaho sida baastada iyo waxyaabihii kale waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha aan rabno inaan ka soo horjeesano sababta oo ah dhibka hadda maanta socda xanuuno badan baa aragnay dad badan oo xanuunsan marka waxaan rabnaa dadka in cuntadii dabiiciga ahayd in la siiyo si ay ugu caafimaadaan sucaad maxamuud cali oo u warramaysay wariye axmed cawil jaamaca telefishinka b b c da barnaamijka ka baxa oo ay soo jeediso victoria debshire ayaa waxa ay waraysatay ilaa iyo 8 haween ah oo u shaqayn jiray ururka samafalka ee MSF haweenku waxa ay sheegeen in qaar ka mid a shaqaalahooda ay u galmoodeen haweenka jirkooda iibsada sheegashada haweenka oo qaar ay ka shaqayn jireen xafiisyada MSF-ta ee Yurub iyo Afrika BBC-du ma xaqiijin karto eedamahaasi ay u soo jeediyeen ururka samafalka ee MSF warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa soo jeedinaya Cabdulqaadir Yuusuf Cali dumarka shaqaalaha ayaa sheegay in ficilada noocan ah ay bateen dhanka kale qof kale ayaa sheegay inay macquul tahay in daweyn lagu bedesho galmada hay-adda ayaa sheegtay inaysan u dulqaadanayn tacadiyada iyo dhibaatooyinka lagu soo eedeeyey shaqaalaheeda waxaa intaa ku dartay in dumarka jirkooda ka ganacsado laga mamnuucay hay-adda MSF haweenaydan ayaa qarisay magaceeda iyadoo ka cabsi qabta in laga mamnuuco hay-adaha deeqbixiyaasha ah hay-adda MSF ayaa shaqaalaysiisa kumanaan xirfadlayaal caafimaad ah kuwaasi oo inta badan laga shaqaalaysiiyo waddamada ay ka soo jeedaan oo ay hay-addu ka howlgasho eedaymahani ayaa waxaa laga soo gudbiyey shaqaalaha dhinaca lojistikada balse waxaa la sheegay inaysan ku lug lahayn dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaad ee ka howlgala MSF shaqaale hore oo hay-adda uga howlgali jirtay xafiiskeeda magaalada London ayaa sheegtay in mar ay ka shaqaynaysay dalka Kenya ay aragtay sarkaal sare oo ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda isagoo gabdhaha keenaya xarunta hay-adda gaar ahaan qaybta jiifka waxa ay tiri gabdhuhu aad bay daadoodu u yarayd waxaana lagu xamanayay inay ahaayeen gabdho jirkooda ka ganacsado waxay intaasi ku dartay in qof shaqaalaha ka tirsan uu sheegay in arrintan ay markasta ka dhacdo halkan oo aysan ahayn wax ku cusub haweenay kale oo iyadana shaqaalaha hay-adda ka tirsan oo ka howlgalaysay Afrikada dhexe ayaa sheegtay in isticmaalka hablaha deegaanka ee jirkooda ka ganacsado ay aad u badnayd hay-adda oo raaligelin ka bixinaysa ficiladaasi ayaa sheegtay inay ka xun tahay inaan lala tacaalin dadka geysta tacadiyadaasi cabdiqaadir aad buu mahadsan yahay
dhammaan xubnaha baarlamaanka dalka tanzaniya ayaa maantay waxaa laga baarayaa cudurka aidiska. waa tallaabo la doonayo in xildhibaanada ay ku dhiirigeliyaan dadweynaha caadiga ah in laga hortago cudurkaasi HIV-ga ee keena xanuunka aidiska. sida dowladda tanzaniya ay sheegtay, tanzaniya waxaa cudurkaasi la nool 1.4 milyan oo qof, balse 50% oo keliya ayaa waxa ay og yihiin oo ka warqaba in cudurkaasi ay la nool yihiin. magaalada Dodoma waxaa warkan ka soo diray wariyaha BBC-da Abubakar Baamu. Cabdulqaadir Yuusuf Cali ayaa soo jeedinaya. tanzaniya ayaa bilowday olole loogu magac daray isbaar kadibna isdawe, kaasoo looga gol leeyahay in dadka la nool cudurka HIV lagu baraarujiyo in ay qaataan dawada ARVS-ka loo yaqaan ee isticmaalaan dadka cudurkaasi qabo. maanta 300 oo xildhibaanada tanzaniya ayaa ololahaasi hogaamin doono, waxa uuna ka dhici doonaa baaritaanka bannaanka baarlamaanka. ra-iisul wasaaraha tanzaniya Qaasim Majaliwa mar uu ka hadlayay furitaanka ololahan ayuu hogaamiyaasha dowladda hoose u sheegay in shacabka ay ku dhiirigeliyaan inay iska baaraan cudurka HIV si kuwa laga helo cudurkaasina ay u qaataan dawada sida ugu dhaqsiyaha badan. Oscar Wegasira Mukasa oo ah gudoomiyaha xildhibaanada u qaabilsan ololaha HIV ayaa BBC-da u sheegay in inkastoo baaritaanka xildhibaanada lagu sameynayo meel shaarac ah, haddana in lasoo bandhigo natiijada baaritaanka ka soo baxdo waxaa go'aan ka gaaraya shakhsigaasi. tirakoob ay samaysay hay-adda tanzaniya u qaabilsan cudurka aidiska ayaa lagu sheegay in 1.4 milyan oo qof ay la nool yihiin HIV, balse 52% oo keliya oo dadkaasi ka mid ah ay la socdaan xaaladooda. cudurkan ayaa inta badan waxa uu saameeyey dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 14 ilaa 25 sano jir. tan iyo markii Maraykanku uu mamnuucay inuu qaabilo qaxootiga ka cararaya dalal ay ka mid tahay Soomaaliya, ayaa waxaa xerada qaxootiga ee Kakuma ku xaniban qaxooti laga qaaday xeryaha Dadaab, halkaasna loo geeyey in loogu fududeeyo dib u dejin ay ka helaan dalka Maraykanka. mase aanay suurtagelin arrintaasi oo go'aankii Donald Trump ayaa rajadoodii riyo ka dhigay, waxaana ay sheegayaan in ay ku dhibaataysan yihiin xeradaasi Kakuma ee la geeyey. waxaa ka mid a dadkaasi Cadar Maxamed Axmed oo Bashiir Maxamed Caato mar uu dhowaan socdaal shaqo ku gaaray xeradaasi Kakuma uu kula kulmay, waxaana ay uga warantay duruufaha adag ee haysta. dhibaatada nagu haysata Kakuma waxaa ka mid ah dib u dejin ma haysano. 2008 IOM baana keentay meeshan, waan ku silacnay, nimankeena way ku dhinteen, ilmeena waa ku agoontoobeen, ilmeena saxarada ma ceshanayaan, waxna loo qabta ma laha. dhibaato xoog leh nagu hayso, waan baaba'sanahay, ilmo yar ogoona haysanaa ilaa 10 sano 11 sano meeshan joogna, waan ku silacnay, waan ku dhibaatoonay, waxna loo qabtan ilaa saacadan UNHCR dib u dejin ayna siisan ma laha. aada uga dhibana. intee lidinka keena markii hore waxaana laga keenay annaga Soomaaliyan ka imaanay ka bacdi waxaana laga keenay dhagaxliyana laga soo qaaday. IOM baana keentay meeshan 2009 baana la keenay. 2009 ilaa abtino 11 sano joognaa, ilaa abtino wax noloma dad fiyoon maniin, waxaan nahay ilmo yar yar baan haysanaa. dadkii meesha way ku agoontoomeen, dhiikar baa ku laayay, barashar baa ku laayay, wax loo qabta malaha. curyaan baa wada buuxdo, dad wada liita baa buuxo. inka hadda kaabka cid wax loo qabta male, wax dhintay iyo wax jabay iyo wax dhamaaday iyo wax dib loo celiyay noqdeen. marka dhibaatooyinkaas aad sheegayso ma u sheegteen laamaha qaramada midoobe arrintaasi qusayso si wax looga qabto? wax noo imaaday oo qaramada midoobe ma jirto. UNHCR-ta kale umbaan maalin kasta noo imaataa, dhibaatadana waa gudbinaa, laakiin siduu Trump meesha u qabsaday ilaa hadda wax natiijo ay kuma hayno. culayska jiran waxaan u malaynayaa kuley inuu yahay Trump. laakiin wadamadii dib u dejinta dadka qaxootiga siin jiray oo wadanka Maraykanka ka mid yahay waxaad moodaa inay joojiyeen. marka inaad damacaasi aad niyadda ku sii haysataan soo kama wanaagsan inaad dib ugu laabataan dalkeena dib uma laaban karno, sababtoo ah dadkii noqday aa wada dhammaaday oo la wada laayay oo hal qof ka joogin. ciddii noqotaba 10 ruux noqoto, 5 baa dhimatay, 5 baa joogta, wadnin kuma siin kara inaad noqoto. waayo gobolada dhaxan ka imaanay ilaa iyo jilib ilaa abtino waxaa haysata shabaab baa haysta, ma noqon karno. beerihii baa nalagu falinaya, wadankii baa meelaan ku noqono ma haysano. gobolada dhaxanahay mana noqon karno. maxaad idin qorshaysaa marka mar haddii aad tiri dhibaatooyinkaas ayna haysta haatan maxaad doonaysaa inaad samaysaan marka? waxaan ka codsanaynaa qaramada midoobe inay dib u dejin na siiso oo buugga naxariista noo baarto, maadaama dad liito oo sangalmaada aan wada nahay, jiisas wada nahay, curyaamo wada joogo, dad liito wada buuxo. waxaan ka codsanaynaa qaramada midoobe dadka liito ama dadka xanuunsan inay wax u qabato. laakiin halkan hay'adaha gargaarka waxay idin siiyaan waxbarasho, raashin waa laydin siiya, gargaar bay sheegeen in laydin siiya. marka dhibaatooyinkan kale aad sheegaysa maxay tahay? caafimaad darro dadka ay hayso waxba raashin iyo surgum iyo qamadi waxba kuma tarayaan. dadkii caafimaad darro hayso way liitaan.
kaamkana wax waa looga qaban waaye maadaama kaamka wax looga qaban waaye ee soomaaliyana aysan joogin in wax loo qabto qaramada midoobay ay saacidayso ama dib u dejin ay siiso xaq waxay u lahaayeen ay siiyaan ayaan rabnaa ayaan ka codsanaynaa annagu hay-adaha qaramada midoobay maadaama maraykanna nacay sidii kanada oo kale waa inayna caawiso ayaan jecelnahay. haddaba waxaa laga yeelaya qaxootiga laga qaaday dhadhaab ee la geeyey kaakuma cabashadooda waxa uu Bashiir weydiiyey Sadka Zujaam oo hay-adda UNHCR u qaabilsan iskudubaridka taakulaynta qaxootiga waxaanu kaga jawaabay sida tan. laba qaybood oo ah qaxootiga Soomaalida oo laga keenay dhadhaab ayaa halkan la keenay. dadkani waxa intooda badan ay ku jiraan goobo ku meel gaar ah oo ku taala xarada Kakumatri. waxaa dhammaan halkan loo keenay si ay dib u dejin uga helaan Mareykanka. tiradoodu waxa ay kor u dhaafaysay 4,000 balse imika waxa haray oo kaliya 390 qof taasi oo ka kooban 72 kiis. waxa ay wali ku jiraan geedi socodka ay Mareykanka ku aadi lahaayeen. nasiib darro sida aad la socoto geedi socodka dib u dejinta Mareykanka ayaa imika waxa uu qaataa waqti dheer. sidaas daraadeed waa in ay sugaan inta ay hawshoodu socoto. qaybta kale waa kuwa halkan loo keenay arrimo kale sida xiritaanka xarooyinka dhadhaab. markaasi ayaa qaar ka mid ah halkani la keenay mana aha ujeedada loo keenay in ay helaan dib u dejin ee waxa ay doonayeen in ay Kaakuma ay ku noolaadaan. sidaas daraadeed kiisaskoodu ma noqonayaan dib u dejin. haweenaydaasi waxay ahayd Sadka Zujaam oo u waramaysay wariyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caato. waa hagaag halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa London. dalka Israa'iil xaaska ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu ayaa waxaa lagu soo oogay eedo la xiriira wax isdabamarin ay ku samaysay hantida dowladda. wasaaradda garsoorka Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay eedahaasi loo haysto Sara Netanyahu inay yihiin lacag dhan $100,000 oo ku baxday adeegyo loo sameeyey guriga uu degan yahay ra'iisul wasaaraha ee ku yaala Qudus. wariyaha BBC-da Sebastian Asher ayaa ka waramaya waxaa soo jeedinaya Maxamed Xaraare. baaritaanka balayska ee Sara Netanyahu waxa uu socday in ka badan 1 sano. baaritaankan oo Israa'iil looga yaqaan arrimaha reerka ayaa waxaa diiradda lagu saaray in xaaska ra'iisul wasaaruhu khasnada dowladda ka dalbatay cuntooyin khaas ah oo qiimo ahaan gaaraya $100,000 inkastoo reerku leeyahay cunto kariye mushaari ah. dacwadooguhu waxa uu ku andacoonayaa in Sara Netanyahu doonaysay inay saraakiisha sare ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ka indha saabto in reerku leeyahay raashin kariye gaar ah. ilaa iminka dacwaddu uma muuqato mid ruuxi karta booska Benjamin Netanyahu oo isaguba ka wardhowraya in lagu helo eedeymo laaluush oo ku jira 2 kayso hore loogu soo oogay. waa hagaag midowga Yurub ayaa waxa uu gaaray go'aan ah in canshuuro balaayiin dollar lagu soo rogo badeecadaha Mareykanka u soo dhoofiyo dalalkaasi. waxaana midowga Yurub uu sheegay in tallaabadaasi ay dhaqan geli doonto maalinta Jimcaha. si aan haddaba faahfaahin dheeraada aan uga helno in markaasi ay seegaan ganacsiga Mareykanka iyo reer Yurub ayaa qadka teleefanka waxaanu kula xiriirnay Axmed Cabdi Xaaji Ibraahim oo Axmed Dheere loo yaqaano oo degan magaalada Bristol ee cariga dalka Ingiriiska kana faalooda arrimaha dhaqaalaha ee ganacsiga caalamiga. waxaana markaasi uu waramay Axmed Nagaasho ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo waxa dhaliyay midowga Yurub in tallaabadaasi uu qaado. tallaabadan Yurub qaaday waxa weeye tallaabo ay kaga jawaabayso tallaabadii uu dhawaan qaaday Mareykanku markuu cashuuro dheeraada ku kordhiyay birta shubka ah iyo waxa la yiraahdo aluminiumka uu saaray Mareykanku labada alaabood ee uga iman jiray Yurub. dabcan wadano kale way jireen sida Canada iyo Mexico laakiin Yurub ayaa imka culayska ugu weyn saaray yahay. sida muuqata wada hadal baa jiray marka dooda Yurub maxay tahay imika haddii uu Mareykanku leeyahay anigu dhaqaalaan abuuraya oo wixii dalkayga la keenayo cashuur macquulaan ka qaadaya. waxa weeyaan sida sheegtay Mareykanku wuxuu ku doodaya isagu wuxuu leeyahay annaga iyo Yurub ganacsiga noo dhaxeeya si cadaalad kuma dhisna oo waxaad moodaa in Yurub ay ka faa'iideysatay sida daraadeed wuxuu leeyahay Mareykanku ay dib ugu noqono arrimaha wada hadalno. halka Yurub ay ku doodayso ay leedahay in heshiisyo hore oo jiray oo ka dhaxeeyay Mareykanka iyo wadanadan Yurub ku midoobay ayaa jiray. heshiisyadaas waxa ay waafaqsan yihiin shuruucda caalamiga sida ururka tijaarada caalamiga ee ka dhaxaysa wadanada. marka maanta wuxuu Mareykanku keligii u qaato tallaabo oo uu jabiyo heshiisyadii la soo maray
ee waafaqsanaa heshiisyada caalamiga waxa weeye waa tallaabo khayr sharciya mana ogolin. waxaanu la tiigsanaynaa haddii inka leeyahay ururkan caalamiga ah ee khuseeya tijaarada. marka haddaan wax yar ku noqdo maraykanka sababta uu ugu dhaqaaqay, maraykanku waxa weeyaan isagu ninka la yidhaahdo Trump ee madaxweynaha waqtigan xaaliga ah wuxuu ku doodayaa in uu isagu mar walba maraykanku xagga ganacsiga ay wadanada kale usoo iibgeeyaan wax walba, halka uu maraykanku warshado badan xiray, shaqaalo badan oo maraykankana ay shaqo waayeen. arrimahana sidaad ogtihiin waxa weeye waa ballanqaadyadii doorashada waqtigii doorashada sii ballanqaaday in uu suuqa maraykanka ee shaqa abuurka ah iyo shaqaalahaba u soo celin doono shaqooyin fara badan oo ka tegay ama ka baxay, maadaama wixii ay ka shaqayn jireen ay noqdeen in laga soo dhoofiyo wadanada dibadda khaasatan Yurub. iminka waxaa muuqata in midowgii Yurub iyo Maraykankiina ay ka dhex bilaabantay saansaanta colaad dhinaca ganacsiga ah oo la mida tii ka dhexaysay Maraykanka iyo Shiinaha. marka saamayn intee leeg ayuu ku yeelanayaa dagaalkan xagga cashuurahaahi Maraykanka iyo Yurubba dhankeesa ayaa laga yaabaa inuu culays badan ku yeesho? jawaabtii oo kooban waxa weeye khasaaro wuxuu gaarayaa labada dhinacba. haddii la eego waktiga dhow waxaa laga yaabaa in wadanada midowga Yurub ay saameynta iyadu saayidka fuusho, sababtoo ah marka la eego midowga Yurub iyo marka Maraykanka la eego waxaa jira wadanada Yurub ayaa wax u soo dhoofisa ka badan inta ay Maraykanku u dhoofiyo wadanada Yurub. sida muuqata Maraykanku markii hore wuu goolaftamayey, waanu kaga dhabeeyey markii dambe oo cashuuraha waa ka ku soo rogay. Yurubna waa tan ka falcelisay iyaduna doonaysa inay cashuuro ku soo rogto badeecadaha Maraykanku u soo dhoofiyo. maxay kula tahay iminka inuu kaga falcelin doono Maraykanku tallaabadan ay haatan midowga Yurub qaadeen? tallaabada runtii laga baqayo ee ugu adag uu Maraykanku qaadi karayo imka waxa weeye waa isaga oo cashuur dheeraada saara baabuurta Yurub Maraykanka laga soo iibiyo. haddii halkaa uu Maraykanku taabto waxay isu rogaysaa dagaal aad iyo aad u xun oo dhaqaale oo ka dhexeeya Yurub iyo Maraykanka. marka taasi hadday dhacdo waxa weeye runtii xaaladdu waxay gaaraysaa meelaha laga soo noqon karin, laakiin dabcan dadaalo badan baa jira oo la doonayo in arrinta wadahadal lagu dhameeyo, ama ha noqoto maxaan ku ihahdaa ururkan la yidhahdo WTO oo isagu runtii markiisa horada leh qayb dhan oo u qaabilsan inay xaliso khilaafaadka tijaarada ama ganacsiga, ama ha noqoto wadanadii iyo soo hor fadhiisanaya. kaasi waxau ahaa Axmed Cabdi Xaaji Ibraahim oo Axmed Dheere ku magac dheer oo u waramayey wariyaha BBC-da Axmed Nagaashe. bal markana haddii aanu ciyaarno oo aanu eegno dhinaca ciyaaraha koobka kubadda cagta ee adduunka ee ka soconaya dalka Russia ayaa weli ciyaaruhu ay si xiise leh halkaasi uga socdaan isku aadka kooxahaasi iyo sida markaasi ay uga soo gudbayaan wareegga koobaad. ciyaar xiise leh oo maanta dhacday ayaa waxa ay dhex martay Denmark iyo Australia, waxaana Australia ay ku celisay Denmark barbardhac oo ciyaartaasi waxa ay ku dhamaatay 1-1. hase yeeshee Denmark weli waxa ay leedahay markaasi 4 dhibcood oo kaalin muuqata ay kaga jirtaa xagga inay u soo baxdo wareeggaasi labaad ee ciyaaraha loogu soo baxayo. Faransiiska iyo Peru ayaa waxay wada ciyaari doonaan saacada 4 galabnimo ee waqtiga London, iyadoo isla caawana markaasi ay ciyaari doonaan waa 7 fiidnimo ee waqtiga London Argentina iyo Croatia, iyadoo ciyaartaasi dhex mari doonta Faransiiska iyo Peruna ay daqiiqado naga xigaan oo 3 daqiiqo ay naga xigaan. haddii aanu eegno dhinaca isu aadka ciyaaraha kooxda gruupka E waxaa ugu sarreysa dalkaasi Russia. Uruguay ayaa iyaduna 6 dhibcood leh oo markaasi goolal unbay ku kala duwan yihiin oo goolasha ay Russia dhaliyeen ayaa 8 gaaraya. marka ayaa waxa ay noqotay kaalinta koobaad, waxayna u muuqataa dalalka Egypt iyo Saudi Arabia inay iyagu hareen. kooxda Group B ayaa waxa ugu sarreysa kooxda Spain iyo Portugal oo isku dhibco ah oo waxa ay leeyihiin 4 dhibcood iyo 2 gool ayay leeyihiin. Iran ayaa iyo Morocco ayaa iyaguna u muuqda markaasi Morocco waxay u muuqataa inay hartay, Iranna waxa ay leedahay 3 dhibcood oo ciyaarta soo socota haddii markaasi ay badin weyso waxay u muuqataa iyaduna inay hari doonto. ciyaarta kooxda gruupka C loo yaqaano ayaa waxaa hogaaminaya Denmark oo 4 dhibcood leh, Faransiisku waxay leeyihiin 3 dhibcood, Australia 1 dhibcood ay leedahay, Peruna waxba ma laha. kooxda Group D loo yaqaano Croatia ayaa ugu sarreysa, Icelandna waxay leedahay 1, Argentinana 1 ayay leedahay. galabtana way ciyaari doonaan sida aan filayo. Nigeriana waxba ma laha oo ciyaartii hore waa laga badiyey. kooxda Ina waxa ugu sarreeya dalka Serbia, Brazil ayaa ku soo xigto 1 dhibac leh, Switzerland 1 dhibac, Costa Ricana waxba ma laha.
kooxda f waxaa ugu sarreysa sweden oo 3 dhibcood leh, mexico 3 dhibcood bay leedahay, jarmalku waxba ma loo ciyaartii hore waa laga badiyey, south koreana waxba ma laha. dhinaca kooxda group g-na waxaa ugu sarreeya kooxda belgiumka oo 3 dhibcood leh, england ayaa iyaduna 3 dhibcood leh, goolal unbay kala duwan yihiin, tunisia iyo panamana waxba ma laha. kooxda hejna waxaa ugu sarreysa markaasi kooxda jaban, senegal 3 bay leedahay, poland iyo gambia waxba ma laha. guud ahaan barnaamijkeennii dunida maanta oo isku soo dabaraday cabdinuur anigoo aadan saalamiinana aan soo jeedinaya warkana cabdiraxmaan xaaji cadow. tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.